mutamarkii toddobaad ee Ahlusunna wal Jamaaca alaaba xilligan oo kale sanad walba lagu qaban jiray qaaradda tan Yurub ayaa waxa uu si habsami looga furmay magaalada Stockholm oo caasimad u ah waddanka Sweden. mutamarkan oo dadkii ka soo qayb galay ahaayeen kuwa ka kala yimid qaaradda tan Yurub ayaa waxa sanadkan ciwaankiisu oo ahaa Islaamka iyo nabadgelyada, iyadoona guud ahaan culimadii ka soo qayb gashay ee mutamarka ka soo gudbiyeen muhiimadda ay leedahay in dadka la fahansiiyo Islaamka inuu yahay nabadgelyo. sidoo kale dadkii ka soo qayb galay mutamarka oo iyaguna ahaa kuwa aad ula dhacsanaa waxyaabaha mutamarka sanadkan looga hadlayay ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay goobta qaar kamid ah culimada u diinka lagu marti qaaday sanadkan mutamarka Ahlusunna ee lagu qabtay wadankani. ikhwaani, meel kasta oo ku sugan tihiin dhammaan inta soo xaadirtay kulankan diiniga ah ee mashaayikhda ay ugu horeeyaan, mucallimiinta xaafidul quraanka ay ugu horeeyaan, maadixiinta nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam ay qaybta ugu sii horeey iyaguna ku jiraan, dhalinyarada Ahlusunna wal Jamaaca ee rag iyo dumar bale. ilaahay subxaanahu wa ta'ala hanagu anfaco mawaadicda wanaagsan oo mashaayikhdu noo soo jeediyeen. ciwaanka mutamarka sanadkan oo ah al-islaam was-salaam, islaamka iyo nabadgelyada. islaamka oo dhan waa nabadgelyo. maxaa jira islaamka oo dhan wuxuu ku dhisan yahay taqwa Allah, ilaahay in laga cabso subxaanahu wa ta'ala. إله إلا عبد مثل صوك وبنا وحويان امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. إلهي أوامر تيسي أفهمها حقه خيرك أجرك الله جلال الله الله الصبر يلا اسمه فرو. قلت متباعي قدر دار dadku horta inay xusuusnaadaan baa muhiim ah. waxa la yiraahdo ihtifaal horta waa isku imaatin dadku haday meel isku yimaadaan wax dhiba kuma jiraan. haddii aysan kaga sheekaynayn meeshaas shay munkar ah ee haddii wanaag la is amrayo waa wixii Ilaahay uu inoo dirsaday subxaanahu wa ta'ala. taas daraadeed waxay muhiim u noqotay idinkoo ah culamaa u diin rag iyo haweenba diinta islaamkana aqoon ziyaada u leh. haddana in la isku baraarujiyo arkaantii islaamka xabad la isugu baraarujiyo siday u noqoto liyahlika man halaka can bayina wa yahya man hayya can bayina insha Allah ta'ala. haddaba si aan warbixin dheeraad uga ogaano mutamarka Ahlusunna wal Jamaaca ee lagu qabto wadankani ayaa waxa ii suura gashay in arrinkaasi wax ka weydiiyo Sheekh Maxamuud Maxamed Cali Sheekh Quraceel ku magac dheer oo isagu waliba ah xubnaha qabanqaabiyaasha martigeliyay. waxaanan weydiiyay muhiimadda uu leeyahay bulshada mutamarka sanad walba lagu qabto wadankani iyo sidoo kale waxyaabihii dadku ay ka faa'iideen ee lagu soo bandhigay sanadkan iyo waliba ciwaanka uu ku saleysnaa. waxaana uu igu jawaabay bismillaahir rahmaanir rahiim. kulankan wuxuu ahay kulan ciwaankiisu uu yahay islaamka iyo nabadgelyada iyo cadaaladda iyo raxmadda islaamka uu leeyahay. waxaana ka soo qayb galay bulsho aad u tiro badan oo wadamo kala duwan ka yimid sida wadanka UK ama Ingiriiska oo kaleeto, wadanka Finland, wadanka Norway, wadanka Belgium iyo wadankan Sweden oo kulanka martigeliyay. marka kulan run ahaantii dadweynaha ka soo qayb galay farxad weyn iyo reerayn ay ka muujiyeen, culum kala duwan ay ka faa'iideysteen oo dhammaantood ka hadlaysa waxyaabaha oo ah diinta asaasiga ama nabigeena sunnadiisa iyo ku dhisan quraanka kariimka. ومحسنتها بهذا الصحافة خاصة تيفي سومالي جنرال وآد نولا قيب قاطي مؤتمركي سنة كان أنا أور بلجم وجماعات نكون نمت آد بان أقول فرح سنة هاي وحبا بان كفا إيدني شركة لوجو ما يحضر النبض هي إسلامك إلهي بان أقول مهد علينا نبض نبوك يعني إن شاء الله. وأنا وحبا أنا كفا إيدني يا خير بدن يا محاضرين بدن أو تذكر إسلام كفائدة. مقعي وحيد عبد الله الشيخ محمد رشيد بالي هذا وحاسات شيء تبع كسوق علي أما وفد نوري كسعودي ودتك كجري بانها. مؤتمر كان ومؤتمر آد مهم كي تضبطنا ويا هذا
ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeedna saad garanayso meel qurba ay joogaan ummada kala tabaalaysan oo meel ku kala daadsan ninba meel gooni uu joogo mutamarkan Ahlusunna wal Jamaaca ee lagu qabtay magaalada Stockholm ayaa waxa uu ahaa mid u muuqday in si weyn looga soo shaqeeyo iyadoona guud ahaan dadka ka soo qayb galay ahaayeen kuwa waxyaabo badan ka faa'iiday oo isoo gudbiyeen qaybaha kala duwan culamaa u diinta mutamarka iyagu ka jeediyay waxyaabihii loogu talagalay Bashir Salaad TV-ga caalamiga Somali Channel Stockholm Sweden.